السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرم بقر ونقود ميديا هدوكو سو قارو walaalkayna sharafta leh iyo walaashayna sharafta leh lex saara sheerna dhaha commentigiina hoos noogu soo qora saad u aragtid xaab badana comment noo soo qora qayb wayna dhaliila qaybna way dhexdhexaad qaybna wayna amaana balse waxaan doonaynaa wax walba oo noo soo jeedisiin taladiina way qaada doonaa insha Allah wixii qalad aragtiina si gaar ah oo la soo xiriir noo sheego bogga Rungood Media wuxuu magaca degmada Rungood ee gobolka Shabeellaha Dhexe waana bogga kaliya ee ka faalooda maanta degmada Rungood ee gobolka Shabeellaha Dhexe runtii asxaab boqolkiiba boqol ayaa nagu taageersan naguna amaana sidan hawsha u wadno maadaama degmada Rungood oo qad lahayn oo joxlo ah walba in ka soo hadalno asxaab qaanada Yurub iyo Asia Afrika joogta maalin kasta qoraalkan iyo muuqaaladeen sawirradaan ay gaaraan waxay noo amaanaan si qof bil aadan si loo amro sida ugu sharaf badan maadaama aan degmadayna uga soo hadalno deegaanadayna si leef amal ah degmada Rungood gobolka Shabeellaha Dhexe waa deegaankayni sharaftiisa dhowreen maantay oday 70 jir ah mid ahaa jiray ciidamadii Siyaad Barre dawladii kacaanka wuxuu nala wadaaga maanta qiso maadaama uu codkiisi aan hadda aanan hayno waqtigaas aan duubitaan oo koon diyaar u ahayn looga sheekay wuxuu noo sheegay sanadkii 1976 xilligii uu dhici rabay dagaalkii 77 oo hal sano ka dhimeeya horteer saan haajin iyo saan maanta ahna ayuu aadina looga sheekay marka waxaan doonaynaa sheekadaasna maanta in la sii wadaagno saxaabtina sharafta leh laag dhaasharna siina faafay mahadsanid wuxuuna yiri xilligaas waxaan kamid ahaa ciidamada militariga xoogga ee ku sugnaa gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa maalmaha kamid ah soo showr hawada Soomaaliya diyaaradda yar oo dalxiisa ilaahay qooxir Yurub oo u socday bariga Afrika si dalxiis ugu sameeyaan haddana quursina way wadeen guri diyaaraddaas waxay ku soo degtay Djibouti waxay ka soo kacday iyadoo doonaysa hawada Soomaaliya balaash meel ahaan iska gasho balse xiriiri markii hore soo sameysay aan laga diiday waxaana looga diiday heedo wuri xilligaas jaajuus iyo waxba jiro adiga gobolka iyo Soomaalidu isku marhayn diyaaradii yareed bay soo gashay balaa macnalan soo gashay raadeelka waxa qabtay berbera xilligaas yiid waxa qabtay oo fiicnay raadeel kale oo yiil lagdoole iyadoo doonaysa in 40 daqiiqo 30 daqiiqo uga gudubta hawada Soomaaliya maadaama diyaarad casri oo dheeraysa ay tahay waxa qabtay raadeelkii Muqdisho sidaas buu u yiri runtii haladu ii sheegay idin sheego wax kale ma diro intaas markay qabteen joogsa waa la hadlay war joogsa xaad la ahayd naqal iruur way iska dhigalaanay kabtankii wada diyaaradda badoolihii way iska dhigalaanay hal arkay inay awood ay ku jiro eeba 20 daqiiqo uga dul bixi kartaa hawada Soomaaliya waxa la go'aansaday markii berbera qabatay lagdoole oo qabtay Muqdisho ay qabatay in marka fadhi oo jirinba xilligaasna hawada bartamaha marayso iyadoo aad u dheeraysa waxa la damcay waxaan ka inuu ciidamadii miiga ahay ala ka xusho anaga xilliga military ahaa laakiin wuxuu goob joog ahaa ciidamada miiga laba miiga la ka xusho oo laba dheer laba miigo aad u dheeraysa ay diyaaradii reeda ka mareeyeen waxa la sheegay amar qaadato inay soo daba kacdo la markii way soo daba kacday dhulkii lama nimi ku degtay hal waa degtay hal ma degin hada dhulka ku sii degaysa diyaaradii yareed heer Yurubka ay lahaayeen kooxdii ay saarayeen la markii dhulka ay ku sii dhicisay haday sii degaysay waxay damacdo inay dhinaca afafiyoon garoonka ugu degatay inay garoonka hal mar bada ku baxsatay in yar uga dushto waxa la arko diyaaraddu mar degatay hada si kacdo miigi dhulka yiila kacay dhulka ku degta kacay kii kale wareega diga raba ka daba kacay geedaha laga mar diyaaradii gentaala ridoowi shaqafka kale lagu qaado daaladii saaray mantagii isku shubeen iyo cabaadkii cabaadeen wuxuu yiri askariga noo sheekay maanta hal mar ay wax yiri arwaa degaayaan degto markii xabsiga loo taxaabo xabsiga magacu loo dhigo xabsi kadib maxkamadda la soo saaro ka bacdi xabsiga loo gudbiyo waxa laga qaday lacag aad u fara badan intaalkii dhacay lacagtiis lagu soo iibi lahay labadii miigstaalkii ku kaceen iyo nimankii dooliyaasha ahay lacagtii qadalayeen wadeen xaaladii daqiiqay socdeen shidaal labo jibaar ah laga qaado xilligaas Soomaaliya wuxuu yiri noocaas ahayd maantana waa arkaysay noocatiin wuxuu yiri dhalinyaro dalkiina ku dadaala saxaabi waxaan ka codsaynaa dalkayna ku dadaano qof walba maanta oo ciidan askari weeyaan qof walba oo maanta dhalinyarada jooga askari dalkiisa la walaal dalkaaga ilaali cadawga ka ilaali jaajuusiyaasha Itoobiyaanka iyo baqtiga iyo Kenyaatiga ka ilaali dalkaayna fadlan dalkaayna ilaalino